بسم الله الحمد لله soo dhawaada waa cashirkii saddexaad ee sidee loo dhisaa website iyadoo loo isticmaalayo WordPress-ka ama software-ka WordPress-ka loo yaqaano waliba si bilaash ah 100% koorsadan waxaan ku dhisaynaa insha Allah taala si bilaash ah kaliya waxa ka xigta inaad haysato computer ama mobile qadna uu kugu xiran yahay kadib darsigeeni ayaan toos ugu gali doonaa wuxuu darsigii ka horeeyay ama cashirkii labaad ee kan ka horeeyay inoo marayay annagoo soo install gareynay shaashad ama Vimeo sida ay Soomaalidu yaqaanaan Vimeo ayaan ku soo shubnay marka saddex qodob ayaa muhiim ah wali waxa inoo furan sida halkaan uga jeedaan darsigii hore qofkii dhamaadkiisa soo arkay ayaa ogaanaya goobjoog ayaa inoo furan maxaa la yiraahdaa waxaan ku sharxeynaa maxaa la yiraahdaa aasaskan menus kan markii la dhisay marka waxa muhiim ah in saddex qodob aad marka hore soo hesho ama aad soo dhisto dashboard ayaan new tab leeyahay si kan inooga bixin kan xooga waa inoo muhiim sababtoo ah waxa inoogu jira ilaa hadda aynu ilaashanayna plugins install dhibkan ayaa ilaashanayna marka mar labaad ayaan maxaa la yiraahdaa dashboardka ayaan new dhahayaa saddex qodob oo muhiim ah ayaan darsigan insha Allah taala ku dhisi doonaa waana saddex qodob oo aad muhiim u ah haddaan dhisno waxa inoo hagaagi doonaa in halkan ay inoogu soo taagmaan maxaa la yiraahdaa menusyada aynu u baahannahay mid walibana hadii la dhufto wixii loo baahdo laga helayo insha Allah taala sida hadda halka marka u baahataba ganacsiga kale hadaan u baahdo ganacsiga goobjoog oo ku hoos jira wax ala wixii ganacsi ah halkan ay ka soo baxayaan dhowrka arrimood ee muhiimka ah saddexda aan soo dhisaynaa waxay tahay inaynu helno wax la yiraahdo category inaan helno category meeshaas ku qoran category ay lahaan category inaan helno code labo inaan helno pages saddex inaan helno appearance qaybta ku sii jirta ee loo yaqaano menus saddexdaas hadii aynu helno insha Allah taala saddexdaas hadda aan dhisi doonaa waxa toos ah inoo taagmi doona aasaskan aragtaan ee midka aynu jecelnahay waxayna aan ka soo dooranayno marka insha Allah taala talaabada koowaad aan qaadayna waxay tahay inaan aadno category-ga ayaan soo taagaynaa menuska ayaan u imaanaynaa asagaas ayaan ka wada dhameynayna kadib ayaan page ku aadaynaa insha Allah taala hadda category-ga ayaan aadaynaa waa soo dhisaynaa shay waliba aan u baahannahay tusaale maxaan uga baahannahay halkan anaga hadda sida website news oo kale ayaan dhisaynaa insha Allah taala halkan waxa ku jiro dhan ayaan u baahannahay saddex dhowrka qodob aan sheegayna waxay isugu iman doonaan qaybta menuska talaabada koowaad aan qaadaya waxay tahay marka ila soco menuskii waxaan rabaa inay ka soo muuqdaan maxaan ka hadli doonaa website-kayga muxuu ku saabsan yahay news hadduu ku saabsan yahay maxaa bilowga hore naqanaya bilowga hore waxaa naqanaya gudaha ayaa bilowga hore naqanaya tanna waa isla iyadoo kaleeto isla wixii hadda ayaa isaga qori kartaa gudaha ayaa bilowga hore naqanaya kuwan uma baahni kan waa postigan xageeb waa isna ka soo muuqanaya waaye marka uma baahni add new category ayaan leeyahay halkan ayuu ku biiri doonaa hadda waxa meeshan ku jiro aan categories mid la yiraahdo wax jira aan ahayn ayaa ku jira marka hadda sida ka aragtaan gudaha ayuu noqday menus labaad ayuu nisuubinayna ilaa insha Allah taala weyn ku wadi doonaa gudaha wixii gudaha warar ku saabsan news caalamka oo kale muhiim ah caalamka halkan sidaas oo kale caalamka wuu ku biiray waxaa kaloo soo hosgeli kara sawiro waxaa kaloo soo hosgeli kara maqaalo waxaan sii maraynaa ilaa 1 2 3 4 insha Allah taala sidaan uma kala horeeyaan oo kala hormarin doonaa oo anagoo jiidjiideyna
sida maxaa la noogu fudud ay noogu wacan tahay ayaan u kala horumarin doonaa. waxaan dhisnay maqaalo sawiro caalamka gudaha. waxaa kaloo iska soo hoosgeli karaa waxaa soo hoosgeli karaa barnaamijyo gaar ah. intana barnaamijyo gaar ah waayahay barnaamijyo gaar ah waa saxan yahay. waayahay intaan markii aan sameynay category waa aragtaan si aad ayuu u fudud yahay. keliya magacaa u baahanta halkaan gelinaysaa waa ku naqaysaa add new category ayaa leedahay. markii categorygan muxuu yahay category insha Allah taala dib ayaynu ka fahmi doonaa. haddaan meel eber sharxa waxaa laga yaabaa inay faham badan ka muuqaways, laakiin markii inta sameyno oo meel gooniya kasoo muuqda ayaa insha Allah taala waxaa leedahay haddii aad fahamta. haddii aad fahminna waa laga yaabaa inaad weyso. marka category markaan sameynay waxaan aadaynaa si toos ah menuska sida ay balantu ahaydba. menuska markii uu inoo soo baxo waxaan insha Allah taala si toos ah isu hoosgeyn doonaa waxyaabihi halkaan aan soo dhisnay. menus qaybtiisa waa tanaa. marka koowaad labada koowaad qaadaysaa waxay tahay inaad iska samaysid wax una maxaa la yiraahdaa bilowga hore main menu ay dadka inta badan iska sameeyaan, laakiin aniga hadda home ayaan iska leeyahay. bilowga hore waa in hal xabo inaad sameyso waxay rabto ha ahaato. kadib ayaad insha Allah taala menuska qaybtan way ku active gareysmaysaa si adiga maxaa la yiraahdaa howlahaaga iyo waxaaga ay kugu hirgalaan. marka menus bilowga hore dadka menuskooda muxuu ka bilaabanaya fiir warbaahintan home ayuu ka bilaabanaya. anaga haday home kumana soo darin. sababta aan ugu soo darana waxay tahay home ma ahan category shaqo kuma lahan ee waa page. sidaas daraadeed halkan ayaynu ka dhisaynaa insha Allah taala. midda koowaad aan sameynayna waxay tahay marka home ayaan sameynayna. home halkan ayaan ka sameynayna ku qoran tahay custom link text muxuu ku soo baxayaa magaca home ayuu ku soo baxayaa. halkan sidee yacni lagu soo gelaya kan waa iska tirtirina waxaan si toos ah usoo qaadayna linkigan. ilaan home markii la dhufto fiiri hadda website-kan markaad home dhufato xagee kuu soo baxaya wejiga koowaad ee website-ka ayaa kuu soo baxaya sax. sidaas daraadeed muxuu gashan yahay ayaga halkaan ayaa ugu jira goobjoog.com ayaa ugu jira linkigooda ah. annagana sidaas oo kaleeto waxaan gashanay copy ayaan soo eray linkiga halkaan ahay halkaan ayaan geliyay sidaa ka aragtaan. add to menu ayaan leena marka halkan inuu ka soo baxo ayaa la rabaa insha Allah taala. waa aragtaan dabcan home wuu soo baxay. marka waxa inoo sameysan ilaa dhowr category ayaa inoo sameysan. si toos ah ayaan insha Allah taala categoryga halkan ugu soo dareena. haday waan soo sameynay waa aragtaan waa tan qaybta hoose categories view all maxaa halkan ka muuqda dhammaan wixii haday aan soo sameynay barnaamijyo gaar ah soo sameynay caalamka soo sameynay gudaha soo sameynay maqaalaan soo sameynay sawiraan soo sameynay waxaan oo dhan marka hal ayaan tib u saarayna dhamaantooda. kan hoose kumaana darin oo awalkiisa hore ayuu original ahaan ugu jiray. marka saas daraadeed markii tigti inoo wada saaran tahay add to menu ayaan leenahay. menuga ay insha Allah taala si toos ah uga soo bixi doonaan halkan ay iman doonaan. si aan u qurxino marka hadda dabcan sida ka aragtaan qaab ma laha. hadda barnaamijyo gaar oo kale inta badan hore lama mariyo sida meesha hadda ka aragtaan waa jiijiidaysa kaliya calaamadda hadda fargeesta ah waa hadda gudaha bilowga hore home ayuu inta badan ku xigaa. halkan ayaa is dhigaysaa. hadda halkan waan baran doonaa insha Allah taala waa qaab gooniya. halkan lama rabo inay tagto halkaas ayaa la rabaa inay tagto home. maxaa gudaha ku xigi kara gudaha caalamka ayaa ku xigi kara waxyaabaha si tooska newska aadka loo xiiseeyo. waxaa kaloo kusii xigi karaa maqaalo waa iska warbixinada inta badan la xiiseeyay waa ku raadinaysaa ilaa aakhir calaamadii haddii halkaan jagsi waa aragtaa calaamadii halkaan ay maraysaa lama rabo. qaybtan hadda si toos ah ayuu aqbalay. barnaamijyo gaara inta badan gadaal iyadoo xigtaan arki jiray intii aan warbaahino booqanayay waa kaas ah. sidan ayay kusoo baxeen insha Allah taala. markaan sidaan u dhisnay kaliya waxaa nagala rabaa inaan tigta saarno folderka uu ku qoran yahay. folderka ayaan dhihinay meesha ay ku qoran tahay primary haddaanan tig saarin waxaa laga yaabaa inay kasoo muuqan waayaan. tusaalo yaana saarin tigta waynu fiirinaynaa save menu ayaan leenahay. waxaan aadi doonaa insha Allah taala page-ka koowaad ee website-keena si aan usoo fiirino annagoo tig waxba aana saarin inay kasoo muuqanayaan iyo in kale. save aan dhahno inuu seefay ayaan u maleynayaa. marka halkaan aan tagno tijaabo
weli waa sidiisii dabcan waxba kama soo muuqdaan, waa aragtaan sidiisi ayuu u taagan yahay. marka si uu uga soo muuqdo waxaan sameynaynaa primary ayaan tig saaraynaa, safe ayaan safe waan niri dabcan sida halka ka aragtaan menu ilaa 7 xabo ah ayuu seefayaa. waayahay website-keena aan fiirina marka refresh and done. maasha allah waa aragtaan home, gudaha, caalamka, maqaalo, sawiro, barnaamijyo gaar ah. kaliya waxaa inaga dhiman aan soo dhisi doonaa 2 shay oo inta badan muhiim ah oo website inta badan aad ku aragtaan oo maxaa la yiraahdaa ku saleysan tahay about maxaa la yiraahdaa iyo contact us inala soo xiriir iyo maxaa anaga website-keenu ku saabsan yahay iyo waxyaabo saas ah. ayagana waxay sida haday oo aan bilow hore kusoo sheegnay ahaa muhiimadda page ayaan insha Allah taala ayaga ka dhisi doonaa. marka waxaan sameynaynaa page ayaan aadeynaa qaybta ay ku qoran tahay pages. waxaan leenahay add new ayaan leenahay. page-ku muxuu yahay? tusaale anaga hadda waxaan ka dhigaynaa nala soo xiriir qofkii adiga inuu kula soo xiriir doonayo website-kaaga khalad uu ku arkay, waxyaabo muhiim uu ku arkay inuu kuu sheego damacsan yahay website-kaaga sidoo kugula soo xiriiri karaa. waxaan sameynaynaa marka page ah nala soo xiriir. bilowga hore maxaa kasoo muuqanaya halkan, magaca halkan kasoo muuqanaya halkaana lagu qoraya nala soo xiriir oo kale. nala soo xiriir, nala soo xiriir waa muhiim. hoos marka waxaan ku qori karnaa nala soo xiriir. nala soo xiriir waa shay muhiim ah. markii lagula soo xiriirayo waxaa la rabaa meel la geliyo emailka qofka kula soo xiriiraya, magaciisa, lambarkiisa hadduu kuusoo dirayo, message-ka uu kuusoo qori lahaa. kuwaas marka halkan laguma qorayo. waxaa muhiima marka aynu aadaynaa plugins. waxaan raadinaynaa loogu talagalay qorshahaas oo dhan oo dhisan oo habaysan ayaan raadinaynaa. waxaan aadaynaa dhanka iyo plugins. halkan iskama furayo, add new ayaan leeyahay. maxaa la yihahdaa plugins, add new waan kusoo daraya. waxaa la yihahdaa contact us, waa mid original ah oo ay leedahay shirkadda WordPress. inta badanna bilowgan hore ayuuba kasoo muuqdaa. waa mid caan ah oo inta malaayiin ay degsatay aadna loo isticmaalo. contacts inuu soo muuqdo ayaa la rabaa. waa kana sida aragtaan contacts from 7 waxaa si toosa u leh shirkadda WordPress iska leh maxaa la yihahdaa isla WordPress-kan. waa aragtaan 5 milyan iyo wax ka badan ayaa active garaysatay, install garaysatayna. marka install ayaan leenahay. wuxuuna sii doonaa codekaas ayaan insha Allah taala ku dhisi doonaa. keliyana anaga copy and paste isticmaalayna, waxaan intaas ahayn ma isticmaalayna. kuwa badan way jiraan, qaar badan oo la gatana waa jiraan, laakiin kan ayaa hadda 5 milyan iyo wax ka badan ay si fariya ku haystaan oo website-yada inta badanna marka aragtaan ay ku dhisan yihiin. activate ayaan leenahay. waayahay markii aan active gareynay wuxuu kasoo muuqday qaybta plugins-ka, weliba siiba calaamadda meesha saaranta oo aragtaan kuwa install garaysan. waa kana marka page-kiisa ayaan si toosa u tagaynaa. dabcan waan badiyaasha kan sidan dareemay, laakiin darsiga xigo ayaa inoo balan insha Allah.